Maxaa ka jira in qamar suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Hargeysa? Maxay tahay xogtan xasaasiga ah? Sidee loo qabtay qamar suugaani? Maxaa uu galabsaday? Xageesa u socday markii garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabanayay? Muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco inuu ku bilownayo waxaa saacadihii u dambeeyay si weyn ugu baahay baraha bulshada in fanaanka caanka ah ee qamar suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Fanaanka qamar ayaa kasoo duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo muddooyinkii dambe uu ku sugnaa, isagoo shalay soo gaaray garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Warbaahinta oo xiriiro kala duwan la sameysay saraakiisha garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxay noo xaqiijiyeen in aan la xirin qamar suugaani. Qamar ayaa waxaa muddo kooban lagu hubinayay waraaqiisa garoonka Hargeysa, taasi oo keentay in rakaabkii kale oo isla socdeen uu ka haro. Warka sheegaya in la xiray ayaa ka dhashay daahista uu qamar ku dahay gudaha garoonka, halka dadkii kale ee flight-ka la wada socdeen ay gudaha u galeen magaalada Hargeysa. Sida ogaatay warbaahinta, fanaanka qamar suugaani ayaa ka baxay garoonka kadib hubinta uu maray ee la xiriiray dukumentiyadiisa. Qamar oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa uu hadal hayn badan ka dhaliyay baraha bulshada kadib markii uu sheegay inuu sax ahayn wax loo qabtay uuna rabo in degdeg loo geeyo Hargeysa. Arrintaasi ayaa dadku si kala duwan uga falceliyeen, isagoo ugu dambeyntiina kasoo degay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Baraha bulshada ayaa waxaa si weyn loogu faafiyay in qamar suugaani lagu xiray shalay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, iyadoo halkaasi laga reebay flight-kii uu kala socday ee kasoo degay garoonka diyaaradaha kana yimid markaasi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Qamar suugaani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, isagoo halkaasi u joogay arrimo dhowr ah, waxaana sheegay in haatan uu soo dhameystay, sidoo kalena dib ugu soo laabtay gurigiisii oo ahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Balse marka uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ku dhagay laamaha baarayaasha, sidoo kalena waxaa la baarayay dukumentiyadiisa si loo hubiyo, waxaana markaasi cabbaan lagu haystay gudaha garoonka diyaaradaha, waxaana ka haray rakaabkii uu la socday. Tani ayaa keentay in la faafiyo warar been ah oo sheegaya in qamar suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Alaabada garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Cigaal ayaa waxaa lagu baaraa dhammaan rakaabyada, iyadoo cid laga shakiyo ama wax lagu arkamay dukumentiyadiisa ay saxeenna lagu hakiyo garoonka, isna markaasi ay u sababi karto inuu ka haro flight-kii iyo dadkii ula socday. Balse qamar oo muddo kooban halkaasi lagu hayay, sidoo kalena waraaqiisa lagu hubinayay garoonka, ayaa waxaa ugu dambeyn fasaxay laamaha, waxayna sheegeen in waxba ay markaasi ku arkin waraaqadiisa balse ay ka shakiyeen. Haddaba baraha bulshada ayaa si weyn lagu baahiyay in la xiray qamar suugaani, waxaana ka falceliyay dad fara badan ayagoo siyaabo kala duwan uga hadlay qaabkii loogu hakiyay qamar suugaani garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa. Maxaa ka jira in qamar suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee Hargeysa? Maxay tahay xogtan xasaasiga ah? Sidee loo qabtay qamar suugaani? Maxaa uu galabsaday? Xageesa u socday markii garoonka diyaaradaha ee Hargeysa lagu qabanayay? Muuqaalkan ayaan kula wadaagi doonaa ila soco inuu ku bilownayo waxaa saacadihii u dambeeyay si weyn ugu baahay baraha bulshada in fanaanka caanka ah ee qamar suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Fanaanka qamar ayaa kasoo duulay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo muddooyinkii dambe uu ku sugnaa, isagoo shalay soo gaaray garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Warbaahinta oo xiriiro kala duwan la sameysay saraakiisha garoonka Cigaal ee magaalada Hargeysa ayaa waxay noo xaqiijiyeen in aan la xirin qamar suugaani. Qamar ayaa waxaa muddo kooban lagu hubinayay waraaqiisa garoonka Hargeysa, taasi oo keentay in rakaabkii kale oo isla socdeen uu ka haro. Warka sheegaya in la xiray ayaa ka dhashay daahista uu qamar ku dahay gudaha garoonka,
halka dadkii kale ee flight-ka la wada socdeen ay gudaha u galeen magaalada Hargeysa. Sida ogaatay warbaahinta, fanaanka Qamar Suugaani ayaa ka baxay garoonka kadib hubinta uu maray ee la xiriiray dukumentiyadiisa. Qamar oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxa hadal hayn badan ka dhaleeyay baraha bulshada kadib markii uu sheegay inuu sax ahayn wax loo qabtay oo rabo in degdeg loo geeyo Hargeysa. Arrintaasi ayaa dadku si kala duwan uga falceliyeen, isagoo ugu dambeyntiina kasoo degay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Baraha bulshada ayaa waxaa si weyn loogu faafiyay in Qamar Suugaani lagu xiray shalay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, iyadoo halkaasi laga reebay flight-kii uu kala socday ee kasoo degay garoonka diyaaradaha kana yimid markaasi magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Qamar Suugaani ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, isagoo halkaasi u joogay arrimo dhowr ah, waxaana sheegay in haatan uu soo dhameystay sidoo kalena dib ugu soo laabtay gurigiisii oo ahaa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Balse marka uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ayaa waxaa ku dhagay laamaha baarayaasha, sidoo kalena waxaa la baarayay dukumentiyadiisa si loo hubiyo, waxaana markaasi cabaan lagu haystay gudaha garoonka diyaaradaha, waxaana ka haray rakaabkii uu la socday. Tani ayaa keentay in la faafiyo warar been ah oo sheegaya in Qamar Suugaani lagu xiray garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa. Alaabada garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Cigaal ayaa waxaa lagu baaraa dhammaan rakaabyada, iyadoo cid laga shakiyo ama wax lagu arkaa ama dukumentiyadiisa ay saxayna lagu hakiyo garoonka, taasina markaasi ay u sababi karto inuu ka haro flight-kii iyo dadkii ula socday. Balse Qamar oo muddo kooban halkaasi lagu hayay, sidoo kalena waraaqiisa lagu hubinayay garoonka, ayaa waxaa ugu dambeyn fasaxay laamaha, waxayna sheegeen in waxba ay markaasi ku arkin waraaqadiisa balse ay ka shakiyeen. Haddaba baraha bulshada ayaa si weyn lagu baahiyay in la xiray Qamar Suugaani, waxaana ka falceliyay dad fara badan ayagoo siyaabo kala duwan uga hadlay qaabkii loogu hakiyay Qamar Suugaani garoonka diyaaradaha ee Cigaal ee magaalada Hargeysa.